السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتا سؤال وهذا لما هو مهسنتين دعوشة دعوانسا فيديوغن إن شاء الله سيدا عوانك أما تارلك فيديوغا بقى كواركتان كم مقتا فيديوغن وحربانا إن كل شهر قرايو أما أنك قهد لدونا أفر أما شان أرين oo telefoonka gudihiisa aynu ka sameyn karno oo ka caawin doona privacy-gaaga iyo security-ga ama data kuugu jirta telefoonkaaga inaad ilaashato ama ku dari kara another layer of security. Insha Allah waxay u badan doonaan meelaha aynu tilmaami doonaa on iyo off waa meel aynu demin doona ama daari doono oo security-ga telefoonka ka caawin doona insha Allah. Marka focuska waxaan ku saaranaa videogan oo koobnaan doona insha Allah dadka sita telefoonada iPhone-ka ah maadaama dad badan ay ka soo codsadeen waxa jiray hadii aad tahay dadka isticmaala telefoonada Android-ka ku shaqeeya sida Galaxy-ga oo kale video kala jira hore aan soo geliyay oo ku saabsanaa sida kamarada iyo microphone-ka la isaga damiyo ama la isaga block gareeyo si aan apps-ka kale aan u isticmaalin oo aanay ku basaasin oo codkaagana aanay duubin video-na ka duubin adigan ogeyn kaas daawo hadii aad Android telefoon ah asidato channelka magaciisa waxaad ku raadin kartaa magacayga oo ah Kamal Armiye videoga title-kiisuna waxa weeye ma ogtahay in kamarada iyo microphone-ku ay ku duubayaan adigoon ogeyn marka insha Allah kan waxaan focuska ku saaranaa waa iPhone-ka iPhone-ka App Store-koodu uu runtii uu controlan yahay xogaa uu dhaama Android-ka oo waxa laga yaabaa apps badan oo free inaad ka heleen marka tutorial-kan videogan ma isticmaal doona apps kamarada inoo damiya ama microphone-ka laakiin telefoonka gudihiisa ayaan wax ka bedeli doonaa oo runtii inaga caawin doona security-ga telefoonka marka insha Allah let's do it waxaad tagaysaa telefoonkaaga setting-ka meesha loo yaqaan ama setting-ka waa wada garanaysaan ama aan calaamadiyaba setting-ka waa ka calaamadiisa waad garanaysaan ama symbol-kiisa setting-ka taabo setting-ku markuu kuu furmo kabacdi waxaad tagaysaa Safari waa meesha internet-ka aad ka gasho ama browser-ka Safari loo yaqaano haddii Google aad tagayso haddii Facebook aad tagayso haddii website aad u baahantay inaad gasho meesha aad ka gasho Safari markaad tagto haddii browser kale oo aad ku shubato aad isticmaalaysana waa la mid kolba browser-ka aad isticmaalayso internet-ka aad ka access garayso ayaa tagaysaa mailina waxay u badan tahay dadku in Safari-ga ay ku isticmaalaan Safari markaad tagto taabato ku dhufato Safari dhankiisa midig optionada ay ku yaalaan waa dhanka midig baynu tegaynaa insha Allah marka optionka ugu horeeya aan rabo inaan tuso ama aynu on ama off ka dhigayno waa optionka loo yaqaano do not track me aan calaamadiyo si optionadan kale aan isugu qaldamin do not track me telefoonada iPhone-adu nidaamo badan bay ku kala shaqeeyaan oo iOS loo yaqaano iOS 5 6 7 9 10 11 12 marka kanaan isticmaalaya iminka waxa uu ku shaqeynaya iOS 10 weeye marka aniga wuxuu ii soo saarayaa do not track me waxa laga yaabaa hadii aad kuwa dambe aad isticmaalayso uu 11 ama 12 uu ku shaqeynayo wuxuu ku soo saarayaa cross site tracking oo cross site tracking ama do not track me waxa la yiraahdaa waa qaab ay ku monitor gareeyaan ama ay ku ogaadaan qofka internet behavior-kiisa meelaha uu galo waxyaabaha uu jecel yahay waxyaabaha uu raadiyo oo interest gareeyo website-yada uu galo tusaale ahaan waxa laga yaabaa internet-ka aad ka raadinaysay kabo oo kale ama saacad ama maadaama xilligii winter-ka lagu jiro waxa laga yaabaa jaakad inaad raadinayso oo kale waxar ka bacdi waxaad gashay Facebook-gii waxa laga yaabaa Facebook feed-ka in lagu soo dhigo wixii aad raadinaysay xoogaa waxar ka bacdiba marka maxay ku ogaadeen waa hadii ay ka dansan tahay oo aanay ku shidnayn cross site tracking ama do not track hadii ay ka dansan tahay ku shidnayn meel alla meesha aad gasho wixii aad raadiso oo dhan way la socdaan way ogyihiin
kabacdi waxay ka iibiyaan kambaniyada waaweyn kadib kambaniyadu way ku target gareynayaan commercial ahaan wixii aad raadinaysay ayaa adiskoodii ama xaysiiskoodii lagu soo dhigayaa marka kaas aynu shidno sida arki kartaan waa off aynu on ka dhigno on okay marka aniga do not track ba option kaas ii soo saaraya waxaana meesha privacy and security hoosooda ku jira sectionkaasi ku jiraan adiga waxa kugu qornaan doonta cross site tracking ama do not track labada kolba kii ku soo baxa optionka kale aan rabo inaan tilmaamo ee ka ku xiga waxa weeye block all cookies oo dhan inaad iska block garayso waa second option aniga iOS-kaygu optionka uu ii soo saaray waa block cookies adigana waxa laga yaabaa saas oo kale inuu ku soo saaro block cookies kuwan dambe iOS 2 alif ama telefoonada dambe haddaad isticmaalayso wuxuu ku soo saarayaa block all cookies oo dhan iska block garee cookiesku waxa la yiraahdaa ama waxa ay yihiin waa qayb kamid ah informationkaagii ama datadaadii oo ay la save gareeyay مثلا website-yada aad booqato oo kale haddii مثلا kaba soo qaad bangigaaga gashay website-kooda username-kaad gelisay password-kaad gelisay macni meel alla meeshii aad booqato waa raad kaa haraya weeye oo save garoobaya marka iyagana waan iska diminaa insha Allah aan optionadan aadin tuso block cookies or block all cookies ku dhufo meesha ka horeysa marka dhowr option buu ku soo saarayaa dhowrka option ay ku soo baxa ka ugu horeeya waxa weeye block ama always block waa optionka ugu horeeya always block oo macnaheedu yahay mar walba block garee haddii taa aad doorato waxa laga yaabaa website-yada qaar inay ku shaqeyn waayaan second option waxa weeye allow from current website only website-ka imika aan isticmaalayo kaliya ogolow waxa laga yaabaa website-ka marka aad ku jirto ama Facebook oo kaliya inaad u ogolaato ka ugu hooseeya oo laga yaabaa dad qaar ku khaldamaya waxa weeye always allow mar walba ogolow website kasta oo gala inuu raad iga reebmo oo wixii aan gala ay save garoobaan marka labada option ka ugu horeeya always block inaad ka doorato iyo second option inaad ka labaad doorato labadaas ayaa ugu I recommend labadaas inaad mid doorato aan ka noqono third option aan rabo inaan tilmaamo ama aan ku daro waxa weeye waxa loo yaqaano fraudulent website warning aan calaamadiyo waa kaas oo fraudulent website warning oo iyadana macnaheedu waxa weeye website-yada aad booqato dhammaan ma wada garan kartid security-gooda iyo inay aamin yihiin inay scam yihiin inay website uu aamina u yahay in kale waxa laga yaabaa website-yada qaar fake ah in loo okeysiiyo website aamin ah oo aad taqaanay in mid fake loo okeysiiyo dad badan oo lagu dhacay way jiraan markaas haddii option-kani uu ku shidan yahay wuxuu ka caawinayaa website-ka markaad gashaba haddii website-kaasu security-giisu aanu safe ahayn wuxuu ku siinaya warning oo wuxuu ku leeyahay website-ka ka joog security-giisu ma fiicna ama waa scam marka it's really good option weeye intaad gelinba haddii warning-ka aad hesho marka asagana on ka dhig okay third option optionka afraad aan raba inaan asagana tilmaamo waxa weeye kamarada iyo microphone-ka sidii videoga hore Android ku saabsanaaba aynu uga hadalnay kan ma isticmaali doono apps free oo inoo block gareeya ma arag app store-ka kama helin haddii ay jiraan ila share garaa oo ii faa'iiday laakiin kamarada waxaanu samayn doonaa kamarada iyo microphone-ka apps-ka isticmaalaya aan rabin baynu iska dimin doonaa ama aan tusi doonaa sida la isaga damiyo waxaad tagtaa privacy-ga waa qaybta bidixda left side-ka meesha ku qorantay privacy ee gacanta yar aad icon-ka u tahay waa halkaas privacy-ga taabo kabacdi dhanka midig right hand side-ka haddii aad tagto waxaa kuu soo bixi doonaa apps badan
I mean apps badan oo kuugu jira telefoonka ama qaar aad ku shubtay ama kuwii uu ku yimi waxaan laakiin focus ka saari doonaa kamarada iyo microphone-ka labadaas inuu eegi doono insha Allah telefoonka isticmaalaya uu cusub yahay ama waa apps badan kuma jiraan isticmaalkiisu uu igu yaraa marka waxa laga yaabaa wax badan inaanay ku jirin haddii aad tagto microphone-ka ku dhufo hal mar microphone-ka taabo microphone-ka markaad taabato dhanka midig waxaa kuu soo baxaya waxaa kuu soo bixi doona apps badan ama app badan oo telefoonkaaga ku jira oo aniga imka hal app ku jira oo fiber oo kaliya ah maba isticmaaleyn laakiin waxa laga yaabaa 20 ama 10 ama 15 app inay kuu soo baxaan halkan oo dhamaantood calaamada ama ay meesha onto ay shidan tahay taasoo macnaheedu yahay in microphone-ka ay isticmaalayaan dhammaan appskan meesha ku jira oo dhami markaad check garee مثلا fiber oo kale waxa laga yaabaa inaad si daily oo isticmaasho Facebook oo kale haduu ku jiro waxa laga yaabaa inaad isticmaasho WhatsApp oo kale inaad isticmaasho kuwa aad sida daily ga u isticmaasho dhaaf hadaminin laakiin kuwa aanad isticmaalin dhamaan iska dami waxa laga yaabaa inay ku dhex jiraan maqaarad la yaabto oo tiraahdo kuwan maxay uga baahan yihiin microphone waligeey microphone uma isticmaalin kuwan oo aan video iyo cod iyo hadal toonaba aan shaqo ku lahayn laakiin haddana still kamarada iyo microphone-kaaga isticmaalaya marka kuwa noocaas iska dimi insha Allah sida loo damiyana waa easy waad garanaysaa waxa taabanaysaa on calaamada onta ah baad off ka dhigaysaa hadhow hadii aad u baahatana onto baad ku celinaysaa on okay aan ka noqono imkana aynu tagno kamarada iyadana hal mar taabo oo fur si aad u ogaato inta app ee isticmaalaya ama fasax u haysta in kamaradaada ay isticmaalaan sidan hore u tilmaamay uu cusub yahay telefoonkani ma aad uma isticmaalin ama wax badan aan ku shubo ma jiraan fiber oo kaliya ku jiro laakiin adiga waxay u badan tahay in apps badan ay halkan soo galaan sidii microphone oo kale inta aad garanayso ee aad hubto inaad maalin walba isticmaasho mooyaane inta kale oo dhan iska demi waxaana u badan tahay inaad qaar badan oo aad la yaabto oo kamarada iyo microphone-kaaga aad tiraahdo maxay uga baahan yihiin inay soo gali doonaan meesha insha Allah iyagana sidoo kale iska dimi on iyo off ka dhig I think so far intaan garan karo ee aan isleeyahay security-ga another layer of security bay ku dari kartaa privacy-ga iyo datadaadana way ilaalin kartaa waa intaas haddii in wax kale oo aan isleeyahay ama aqoonteeda kalena ay ku soo korodho insha Allah waan idinla share garan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin dhammaan daawashada videogan aad daawanaysaan I recommend inaad subscribe garaysaan insha Allah wixii loo baahan yahay comment-ka ay ugu soo weydiisaan insha Allah wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh